gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid gobolka Togdheer mudane Fuad Maxamed Furre oo warbaahinta kula hadlayay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ah ee ucid uu ku leeyahay gobolka Togdheer ayaa wuxuu eedeedaymo culus u soo jeediyay gudida kominshanka doorashooyinka Soomaaliland inay sabab u yihiin dib u dhac ku yimid doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka Soomaaliland ee la filayay inay ka dhacaan Soomaaliland dabayaaqada sanadka 2019 Fuad Maxamed Furre oo arrimo kale ka hadlaya waxa uu yiri halkan kelmadeed waxaan kaga oranayaa komishanka doorashooyinka qaranka oo aan ku tilmaamayo inay iyagu doonayaan inay doorashadu dib u dhacdo waxa laga doonayaa maanta xukuumadda madaxweyne Muuse bixi waxa uu taala inuu go'aan ka gaadho sidii daahir yaala ka ahin go'aanka uga gaadhay barigii muddadii ay yiraahdeen ma dhici karto doorashadu golaha guurtiduna ku raacday uu xilligeedba dhacaysa ee uu teemkeedii ku qabtay madaxweynahan maanta looga fadhiyaa cidda doorashada dib u dhigaysaana maanta ayaan ku eedeynaa waa komishanka qaranka oo kororsi doonaya maanta biriishkii burco wuu sigtay saacado dhan baa shacabku dul mariyay gaadiidku oo dadkii gadoodeen oo jabsadeen waxaan ku eedeynaa taasna xukuumadda dhexe waxaan ugu eedeynaa gobolka Togdheer biriishadeedu dhibaatooyin baa soo gaadhay waxbaan ku qabanaynaa bay yiraahdeen xataa aan waxba laga ma qaban waxaanu kula dardaarmaynaa shacabweynaha reer Soomaaliland ganacsatadii biriishada inay iyadu sidii ay markii horeba u dhisteen maantana u maalgashadaan muddo badan baa la ballan qaaday dawladda hoose waan ku xog wareysanay shaqo kuma laha kumana eedeynayno dawladda hoose waxaan ku eedeynaynaa wadadan dhakhtarka weyn ka soo baxda ilaa Ali Xuseen socota hortayadan waxaad moodaa in ucid lagu eegayo wallaahi baabuurta wadada ugu xun magaalada waa wadada xarunta ucid hormarta magaalada halka ugu daran geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid ee gobolka Togdheer Fuad Maxamed Furre ayaa ka hadlay sawir maalmihii u dambeeyay baraha bulshada dhexmarayay kaasoo aragtiyo kala duwan ay ka dhiibteen bulshada ku xidhiidha baraha bulshada qof iyadoo xajkii la gudanayo ay tahay maalin cibaado in la siyaasadeeyo oo la yiraahdo meeshii la isku cafinay iyo maanta kii kelmad kasta wixii sheeganaya Puntland ha sheegto Jubaland ha sheegto gobolada dhexe ha sheegto dadku way siman yihiin Soomaali baa sheegaysaa muslim oo dhan ba xajka ku siman waa walaalo dadka xaramka jooga dhammaan waa walaalo madaxweynaha iyaga waxaan ugu mahadnaqayaa sida kalsoonida leh oo xajkiiska uu gudanayay aan kala weynaan qarannimada Soomaaliland malihin madaxweyne qarannimada Soomaaliland waajibaadka xajka kala weynaato qof kasta waa ku waajib oo islaam ah inuu xajka guto wixii cuqdad iyo qarannimo iyo qabyaalad iyo dawladda ku jira dabada la sii dhigto waxa laga tagay markii diyaaradda la fuulay ayaa laga tagay taa madaxweyne hambalyaan leenahay kulli maalmo dhaweyto halkan waxa ka soo dhacay shil yar ceelifweyn soo yar noqonaya kelmadaas marka la ka hadlaabay heed ceelifweyn dhibaatada ka dhacday waan ku xunnahay dadka wax magaratada ah waxaan leenahay war ilaahay ka baqa war hada ilaahay ka baqa war wanaagiina garta عبد الله محمد عبد الله واربعين تدلسن مقالة برا